بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تلمون برودكشن سود واد waxaan idin wada qiso aad cajiib u ah, qiso aad ka fahmi doontaan xikmado badan isla markaana ka dhergi doontaan. Waxay ka kooban tahay qisadan dhowr qaybood. Insha Allah waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo 2 ama 3 qaybood oo alla idmo. Waxaan rajeynayaa inaad wax badan oo faa'iido ka heli doontaan. Tulmoone waa tolkaaga ku tolno markasta, yani ku dhaafin qisooyinka macmacaan ee la soo gelinayo. qisadan maanta aan idin wadno waxaa la yiraahdaa qisadii Calagoon. waxaan rajeynayaa insha Allah qisadan inaad si fiican ugu tixnaan doontaan, wax badan aad ka faa'iidi doontaan. haddaad ku cusubtahay janaalka walaga soo reeymayaan lagama xigo subscribe saar, insha Allah wax badan baad faa'iidi doontaa. gambaleelka ka xiga dhinaca midig calaamadda casaanta ee subscribe-ta ku dhufo si mar walba ogeysiisku kugu soo dhaco wax allaale wixii cusub ee la soo geliyo. qisadii Calagoon ku soo dhawaada. nin ayaa waxa uu guursaday 2 haweeney, waxa ay kala dhaleen 2 wiil oo aad isugu eg oo aan la kala garanaynin. waxa uu u bixiyay hal magac oo Cali ahaa. aabihii waa uu geeriyooday, kadibna waxa geeriyootay mid ka mid ah labadii xaaskii soo hartay ayaa isku korinaysay 2 wiil. hase ahaatee xaasku waxay aad u jecleed wiilkeeda oo ay rabtay in aanay isku si u xanaaneynin, isku cunto aysan siinin oo cuntada ugu roonaato wiilkeeda. balse dhibka jir waxa uu ahaa ma aanay kala garanaynin 2 wiil aad bay isugu ekaayeen. waa isjirisiisay oo xanuun bay isku riday. 2 wiil bannaanka ay ari ku raacayeen. xilliga quraacda ee ay soo galeen ayaa kii ay dhashay ku soo leexday oo ku yiri hooyo sidee lagu hayaa. waa sidii ay rabtay, calaamad ay diyaarsatay ayay dhegta uga dhajisay si ay u ogaato markasta wiilkeeda. maalinka kadib waxa fiican oo idil wiilkeeda ayaa ay siisanaysay, waxa xun wiilka kale ee labada dhinac agoonka ka ah ayay siinaysay. wiilkii waa uu dareemay sida ay yeelayso eedadiis. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa ay wiilkeedii siisatay muufo aad u wanaagsan, wiilka kalena muufo liidato. Calagoon waxa uu la hadlay walaalkii oo uu ku yiri waxa aan cunayno waa muufo soo ma ahan, mid walba tiis ceelka ku rido si aan u aragno sida ay noqoto. wiilkii hooyadii nooleed ayaa ku riday salka biyaha ayaa degtay. Calagoon ayaa ku riday hoos uma degin, korka ayaa iska joogtay. waxa uu yiri aboowe sida aad u jeedid muufadaadii ceelka waa ay ku dhacday, maxaa yeelay waa ay wanaagsaneed sida ayaan u degtay qalbiga hooyada, balse aniga muufadeeda ceelka kuma dhicin, sidaana qalbiga hooyada uma degin. marka walaalow aniga waan iska tegayaa, halkan ma joogi karo si aan u dhibin hooyada. walaalkii ayaa yiri aboowe kama maarmo, ha iga tegin, adiga iyo aniga ayaa walaalo ah. Calagoon waxa uu yiri waxa aan tiin ku talaalayaa ceelka hortiisa. haddii aad aragto tiinkaas oo cagaartay oo qurxoon, waxaad ogaataa aniga nolosheedu ay qurxoon tahay. haddii uu qalalo ama isbedelan, waxaad ogaataa nolosheedu waa isbedeshay oo waa ay xuntahay soo raadi. dardaaran fiican buu ugu tagay Calagoon. qalabkiisa iyo dharkiisa ayuu qaatay, socod dheer ayuu bilaabay. markii uu muddo socday ayaa wax uu arkay nin meel qalalan ari ku raacaya, meel kale oo doog ahna u dhowdahay. ninkii ayuu weydiiyey waxa sababay meesha doogga ah in uusan ariga ku raacin. ninkii waxa uu ku jawaabay halka bahal ayaa degan, marka waa aan ka cabsanayaa. Calagoon waxa uu yiri ii tilmaam halkuu bahalku joogo. waa uu u tilmaamay, halkii ayuu tegey, bahalkiina ku dilay. ninkii aad ayuu ugu mahadceliyey, waxa uuna siiyey neef ari ah. Cali waxa uu yiri ii haay neefka, markii aan soo laabto ayaan kaa wadanayaa. socodka ayuu sii waday. waxa uu arkay nin raacayo lo, hase ahaatee meesha doogga ah kuma raacaya, meel abaar ah ayuu ku raacayaa. waxa uu weydiiyey waxa ku kalifay. waxa uu ugu jawaabay in halkaa sidii oo kale bahal uu joogo oo la tegi karin. bahalkii hooygiis itus ayuu yiri, waa uu u jeedsiiyey, halkii ayuu tegey, bahalkiina ku dilay. markii uu soo laabtay ayaa ninkii lo'da lahaa u mahadceliyey, waxa uuna siiyey neef lo ah. sidii si la mid ah ayuu Cali socday. ayuu Cali ka codsaday inuu neefka lo'da ah u hayo, markii uu soo laabtana uu ka wadan doono. Calagoon socodkii ayuu sii watay. waxa uu arkay nin geel la joogo, hase ahaatee meel abaar ah kor ilaalinayo, agagaarkiisana dhul doog ah aad u barwaaqo ahna u dhowdahay. waxa uu u sheegay in keentas libaax looga baqaayo. Cali libaaxii ayuu u tegey, halkiina ku khaarijiyey. ninkii geela iska lahaa aad ayuu ugu mahadceliyey, waxa uuna siiyey hal. Cali waxa uu ka codsaday in uu u haayo neefkan geela ah, markii uu soo laabtan uu ka wadan doono.
cali agoon socodkiisii ayuu sii watay. wax uu gaaray tuulo, waxa uu ku leexday ceel oo uu hor fariistay. wax uu maqlay ooyin, haddii uu fiiriyeyba waa haweenay aad u qurxoon oo ooyeysa. cali agoon gabadhii ayuu ku leexday, waxa uuna weydiiyey sababta ay la ooyeyso. waxa ay ugu jawaabtay, ceelkan oo ay tuulada ka cabto waxaa ku jirta abeeso weyn oo 7 madax leh. ceelka lagama cabi karo shardi mooyaane, kaasoo ah in maalin walba ay hal gabadh nafteeda isugu tuurto si uu maalinta ugu qadeeyo, kadibna ay biyaha ka cabaan dadka tuulo degan. maantana waa doorkeyga oo hadda waxa aan sugayaa inta ay ka soo baxayso si aan isugu tuuro. cali agoon waxa uu yidhi, ma dhici karto, tuulada dhan ma laga waayey hal qof oo ka takhalluso. gabadh waxay tidhi, maya, khatarteeda ayaa badan. cali agoon waxa uu yidhi, ii sheeg haddii aan hurdo oo ikici si aan uga takhalluso, aniga ayaa dilaye. cali agoon waa uu iska seexday, ilaan socod dheer ayuu soo galaye. bahalkii ayaa yimid, waa uu soo qayliyey. waxa uu isku diyaarinayaa gabadha loo diyaariyey si uu ugu qadeeyo. gabadhii waa ay qaylisay, hase ahaatee cali waa uu maqli waayey. kadib tin ayaa ka jartay madaxiisa oo ay la yaabtay. tintiisa oo ahayd tin dahabi ah. waa uu kici waayey, bahalkiina uu soo dhowaaday. gabadhii aad ayay isugu naxday, waa ay ooysay. cali agoon ooyintii ayuu ku kacay, gabadhii ayuuna canaantay oo uu ku yidhi, maxaad noo kicin weyday? hadda waan sigannay labadeennuba. bahalku waa uuna cuni gaaray, inuu nugu qadeeyay ayuu ku sigtay. adigu xagga iska tag ayuu ku yidhi, aniga ayaa ka takhallusayee. cali agoon ceelkii ayuu gudaha ugu dhaadhacay. qorigiisii ayuu diyaarsaday. abeesadii oo diyaarsan, iskuna diyaarisay gabadhii ay cuni lahayd, ayuu xabad ku riday. madaxa ayay ka haleeshay. waxa ay tidhi, madaxaygii dhabta ahaa ma ahan. cali agoon ayaa ku yidhi, anigana xabaddeedii dhabta ahayd ma ahan. xabad kale ay ku riday, madaxii kale ayay uga dhacday. waxa ay tidhi, madaxaygii dhabta ahaa ma ahan. isaguna sidii oo kale waxa uu ku yidhi, tuurmadeedii dhabta ahayd ma ahan. xabad kale ayuu ku riday, madaxii saddexaad ayuu ka haleelay. xabaddii kale sidii uu mar walba madax uga takhallusayay ayuu madaxii 7aad oo halkaa kii ugu dambeeyey ahaa ka toogtay. marka ayay waxay tidhi, hadda ayaad dishay madaxaygii xaqiiqda ahaa. isagiina waxa uu yidhi, xabaddeedii saxda ahayd ayaan kugu riday. halkaa ayuu abeesadii uga takhallusay, gabadhiina ku badbaadiyey. gabadhu waxa ay ahayd gabadha boqorka. halkii waa ay ka tagtay, gurigeedii ayaa ay aaday iyadoo nabad ah. cali agoon isaguna halkii waa uu ka dhaqaaqay markii uu bahalkii toogtay. gabadhii markii ay tuulada gashay, dadkii ayaa ku soo xoomay iyaga oo dhahaya, annaga gabdhaheennii naftoodii ayaa ay horeen. gabadha boqorkana doorkeedii ayaa la joogaa, waana ay diiday inay ceelka isku tuurto. sidan cadaalad ma ahan. boqorkii tuulada oo ah boqor caadil ah ayaa arkay gabadhiisa oo nabad ah iyo dadkii oo wada xanaaqsan. waa ay soo carartay, ma aanay biimeenin nafteedii. sidan cadaalad ma ahan ayay dhahayeen. boqorkii aad ayuu u xanaaqay, qorigiisii ayuu soo qaatay. gabadhii ayuuna rabay in uu dilo. gabadhii aad ayay u qaylisay iyadoo leh, aabbe ma diidin in aan ceelka isku tuuro, ee bahalkii cali ayaa dilay. mar allaale markii ay dadkii maqleen, aad ayay u farxeen, sababtoo ah abeesadii dhibtay oo gabdhaha ka dhammaysay haddii laga takhallusay. boqorkii gabadhii ayuu la hadlay oo uu ku yidhi, inakeen cali aan raadine si aan ugu mahadcelinno oo aan abaalmarin u siiyo. haddii ay ceelka yimaadeen ma aanay arag, ilaan islamarkiiba waa uu dhaqaaqaye. boqorkii ogeysiis ayuu bixiyey, waxa uuna yidhi, ragga tuulada dhammaan ha ii yimaadaan qasrigayga si aan ugu ogaado ninka bahalka dilay oo aan ugu abaalgudo. raggii oo idil qasrigii ayaa isugu yimaadeen, iyaga oo mid waliba uu leeyahay, aniga ayaa dilay, maya aniga ayaa dilay, waa beentii ninkan, aniga ayaa dilay abeesada. gabadha ayuu la hadlay oo ku yidhi, taabo ninka bahalka dilay. gabadhii raggii ayay ku tidhi, iska qaada cimaamadaha, mid walba timihiisa ayaan eegayaa. waxayna ay haysay tintii cali oo dahabiga ahayd. qof u tin eg ayaa ay ka weysay, waxaana ay aabbeed ku tidhi, aabbo, ma hayo ninkii bahalka dilay. cali agoon qisadiisu qiso aad u macaan weeyaan, waa ayna dheer tahay. waxaan u malaynayaa qisooyinka aan duubi jirnay middan inay ugu dheeraan doonto. waxaan rajaynayaa qisadan qaybteeda dambe
inaad aad ula dhici doontaan. haddii nagu dheeraato laba kalaan kasii dhigaynaa, haddii ay caadi noqotana hal qaybood ayaan kusoo koobi doonaa. waxaan rajaynayaa inaad qisadan la dhici doontaan. tolmoone waa tolkiina ay ku tolnaada. subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. aad baad mahadsantihiin. hada wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.